isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal iyo Dr. Faadumo oo ka socotay wasaaradda heer qaran ee Soomaaliland ayaa maanta kulan tababar waxay si wada jir ugu fureen 60 haween oo ka kala yimid guud ahaan degmooyinka gobolka Awdal kuwaas oo lagu tababari doono mashruuca Marwo Caafimaad mashruucan oo iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo hay'adda Safety Children ugu horreyn waa kan hadaba xogayaa gobolka Awdal iyo mas'uul ka tirsan hay'adda Safety Children oo halkaasi ka hadlaya waxay yiraahdeen isuduwaha wasaaradda Mustafa oruntii inta uu joogo wasaaradda dardar badan ku soo kordhiyay waan dhalinyaro aqoon-yahana professora runtii wasaaraddu inta hadda uu joogo hadii aan nahay maamulka gobolka Awdal waxaan dareensanahay inay noqotay wasaaradaha ugu dhaqdhaqaaqa badan leh ama ugu activesan mashruucu aniga matalaya gudoomiyaha gobolka Awdal oo shaqo inaga maqan barnaamijku inoo furan yahay training-kan wuxuu inoo socon doonaa insha Allah muddo 6 isha waxaana lagu tababarba ku qaadan doontaan adag hawl adag bay idin taala hadaatiin marweyn caafimaadku berigii hore waxa lagu daweyn jiray ilmuhu markuu xanuunsado waxa la geyn jiray xarun caafimaad barta waxa kula carari jirteen meesha ugu dhawe xarun caafimaad ay tahay imika idinka la doonayo ilmaha yarna guriga ku daweysaan geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay Dr. Faadumo oo ka socotay wasaaradda caafimaadka ee heer qaran iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal waxaanay dhamaantoodba tibaaxeen aqoon kororsi kaliya maaha idinku waxaad wadiin oo mashruucan ku saabsan yahay waxa weeyaan badbaadaynu soconnaa waxaynu badbaadinaynaa waa caruurteenaas waa wixii 5 jir ka yar ayuu target gareynaya programkani marka Marwo Caafimaad hore tababar oo soo qaateen laakiin kani waa component cusub oo lagu kordhinayo aqoontii hore ee berigii hore la dhisiyay ayaa kani wuxuu noqonayaa mid kaabaya tii hore laakiin haddana xooga saaraya caruurta wixii 5 jir ka yar cudurrada ugu waaweyn ee la rabo in dadkana ka wacyi gelisiin si degdeg oo hufanna wixii daaweyna aad u sii bilowdiin wixii itaalkiina ka weynaadana xarun caafimaad si degdeg ah ugu gudbin lahaydeen saddexda xanuun aan target gareynayna waxa weeyaan oo fareenka duumada amba kaneecada iyo shubanka waxaanu ka socdaa 3 gobol ayuu ka bilaabmaya isla maanta tababarkani Awdal Togdheer iyo Maroodi Jeex waxaanu tababaraynaa Awdal 60 Marwo Caafimaad Maroodi Jeex 60 Marwo Caafimaad Togdheer waxaanu ka tababaraynaa 70 Marwo Caafimaad waxa weeyaan waxaan ognahay in aad iskugu jirtaan number hore loo soo tababaray oo 50 aha iyo 10 imika saylac ka socda oo iyaga laftirkoodu inay tababarka ay qaataan ay tahay aad iyo aad bayna runtii wasaaradda muhiim ay ugu tahay inaad inagoo isku dhafan tababarkaasi la inisiyo wasaaradda heer qaran oo maanta mashruucan cidii gacanta ku haysi aan nasiib u yeelanay inay maanta inaga gobol ahaan ay nagala soo qayb gasho Dr. Faadumo oo in badan iyaduna ku hawlanayd hawshani aad iyo aad baan iyadana ugu mahad celinaynaa maanta meesha la doonayo inaad caafimaadka ka gashaan oo aad ka buuxisaan oo ka mid noqotaan bahda caafimaadka waa meesha la oran karo waa payska ama lafdhabartii waxa weeyaan caafimaadka sababta intaasoo dhan waxa loo ordayaa community-ga loo dhex jooga waxa weeyaan usrada ama qoyska ay hooyadu ugu horeysay iyo dhalaanku sidii loo kaabi lahay caafimaadkooda looga shaqeyn lahaa bulshadu waxa ay ka dhalataa ama ay ka kortaa waxa weeyaan waa hooyada iyo dhalaanka number marka la qiimeynayna halkaas laga bilaabaa waxa weeyaan aqoonta la inisiinaya waa mid ka bilaabmaysa shakhsiyan adiga inaad horta iska bilowdo oo ay tahay waxan nolol ahaan iyo xirfad ahaanba adigu sideebuu ku anfacaya anfacaadiisa markaad adigu ogaato muhiimadda uu leeyahay ay noqonayso in adiguna damiirkaagu ku siiyo dadka baahida u qaba waxa ay baahida u qabaan inay waxaad adigu garanayso ee cilmigeyga aad leedahay waa alxamdulillah maadaama numberka inta leeg maanta iyo number kale oo inta isaguna joogo 60 maanta gobolka uu ka hawlgalayo waxaan oran karnaa waxa kaliya loo baahan yahay waxa weeyaan conscious ama damiirka bil aadanku ee cilmigan la inagu siinayo
idoo idinka iyo inta kaleba uu ka shaqeeyo si markaa loo kafargareeyo oo loo gaadho hadafka la leeyahay xanuunada saddexda ah ee laga soo sheekeeyey carruurta ay ugu horeeyaan kuwa ugu nuguli in la kafargareeyo oo laga daweeyo intii taalkiina iyo inta layni siiyey ee cilmiyan laynigu siiyeyba waxaase dardaarankaygu yahay kama dambaystii inaad idinku noqotaan dad u soo jeeda waxa la siinayo dad u soo jeeda hawsha ay qabanayaan inay hawl muhiima oo dadku ay u baahan yihiin ay tahay intaasaan runtii kusoo khulaasaynaha geestiisa isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka awdal wuxuu kulan la qaatay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha hay-adda World Vision kaasi oo lagaga hadlayay dardargelinta howlaha shaqo ee u hayso World Vision caafimaadka. Xuseen Aatee Jama, Raya TV, Boorama.